dowladda hadda ka jirta Soomaaliya madaxweyne xasan sheekh madaxweyne ka ah imaaraadku saaxiib uu leeyahay problem hadda asagu kuma qabo markaan leeyahay waa u kasaya kalmadaas maxaa ka wadaa dhib kuma qabo ama faa'iido ku qaba nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam lama kala lahan ninka masaajidka jooga iyo ninka sirdoon ka shaqeynaya iyo ka siyaasadda ka shaqeynaya nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam waa wada leeyihiin dadku waxay dhahaan xilligii fahad uu joogay wasugida xilligii ugu awoodda badneed siyaasadda looga isticmaal jiray fahad oo siyaasiyana waa arrin fahad oo taliyana wasugidna waa arrin kale falsafadii hore oo sirdoonka hadda waa laga soo tagay adduunka waagi hore falsafada sirdoonka waxay ahayd nolosheeda intii ugu dambeysay oo marna warbaahin baan ka shaqeynayay marna waxaan ka shaqeynayay siyaasad laakiin tababarkii la diyaarinayo hore inaan sheekh noqday ahayd macallin dugsi quraan waa noqday arday fara badan baan kiciyay oo quraan baray masaajid imaam waa ka noqday muddo dheer waliba haddii jidkaas aan kusii joogi lahaa waan u malaynayaa inaan markiibahan imid si fiican baan u xasuustaa suuratul qasas safxada u dambeysa uu fasirayay faqaraja calaa qowmihi fii ziinatihi qaala aladiina yuriiduuna alxayaata addunya buu fasirayay marka mar xataa aniga waxaan isdhahay cashirka u horreeyay oo qaatay xataa siyaasadu ahaa bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal kusoo dhawaada wareysi gaar ah oo aan la yeelanayno agaasimihii hore nabad sugidda qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ahaana la taliyay amniga qaranka agaasimo kusoo dhawow Risaale TV marka hore waxaan rabnaa inaan ku bilowno maxaa kugu dhaliyay xilligan inaad qortid buugga sooyaalka suubanaha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله adiga iyo tiimkiina risaalo waa idin mahad celinaya mar haddii dadku ay muslimiin yihiin waxaa saaran waajibaad baa ka saaran qofka diintiisa waajibka koowaadna waxaa waaye wixii aad taqaano inaad gudbiso marka wixii ugu dhaliyay waxay ahayd waxaan daraaso ku sameeyey jiilka Soomaalida ee hadda jooga waxaa ii soo baxday marka laba mushkiladood ama labo shay oo aan jirin annaga jiilkanagii inay hadda jirto midda koowaad waxaa weeye luqadda carabiga inay hoos u dhacday oo awooddii luqadda carabiga ay lahayd ilaa sagaashameeyadii bartamihiisii hadda awooddii hore ma lahan jiilkii tacliinta hadda bartay luqadda carabiga waa ku yartahay gabi ahaan Soomaaliya iyo dadka dibadaha aadayba laga yaabo kuwa dibadaha aaday xataa Soomaaliga inay kasii fogaadeen qaarkood mushkiladaas marka waxay noqotay qofkii hadduusan luqadda carabiga aqoonin sidee buu siiradii nabiga kaleey salaatu wasalaam ku ogaanaya ama diintii uu ku baranaya tan labaad oo daraasadii iga soo baxday waxaa waaye in ay yaraatay xalaqaadkii waxbarashada diiniga ah lagu sameyn jiray oo xawligii ku socon jirtay inuu hadda yaraaday ama si kale haddaan u dhigo jiilka dhalinyarada ee hadda jooga inay ku yaraadeen inay diinta inta bartaan masaajid fariistaan xir noqdaan wax bartaan inay ku yaraatay marka waxaa fiican maadaama risaalada islaamku ay tahay risaalo caalami ah ummadoo dhanna loogu talagalay luqad kastana loogu talagalay in afkoodii loogu geeyo wixii ay rabeen inay ogaadaan saa darteed labadaas sababood horta waxay ugu dhalisay inaan isku dayo bal Soomaalida afkooda inaan ugu turjumo oo aan u qoro buugana sida aan u qoray tarjuma ma ahane waa ta'liif ama waa curin saa darteed marka waxaan isiri labada baahi oo jirta waxaa ku dabooli kartaa inaad afkii dadkooda kula hadashado wax ugu qortid maxaad ku dooratay in buuggaaga kugu horeeyay uu noqdo siirada nabiga ama taariikhda nabigeena nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee maxaase muhiim ay kugu noqotay xilliga waxaa jiray intii de horta qofka haddii uu rabo inuu qiimo iyo wax soo saar ummadda kusoo kordhiyo waxaa u fiican waqtiga aadan dangood ku mashquulsanayn aada firaaqada haysato wixii aada ummadda u faa'iideyn karto iyo waxa adiga faa'iideysan kartaba inaad ku mashquusho hadda kama hadlayo waxa aniga aan kororsaday waxaan rabaa inaan ka hadlo 2 sano iyo barkii ama 3 sano la soo dhaafay waxaan aad ugu mashquulay inaan 4 buug qoro 4 buug 3 kamid ah waa siyaasad mid sirdoonka ka hadlaya mid siyaasad ka hadlaya iyo mid taariikh ururada islaamiga ee Soomaaliya soo maray kuwoodii hubka qaatay ee xabadda qaatay taariikhdoodii ka hadlaya
marka buwaagtaas saddexda ah daraasadan ku sameeyey waxay ahayd in soomaalida mushkiladaha haysata waxaan u bixiyey waxaa ka mid a nacas waxtar leh af carabiga waxaa lagu dhahaa alaxmaq almufiid marka alaxmaq almufiid iyo nacas waxtar leh waa useful idiot marka in aan helo soomaaliya mushkiladda haysato inay tahay doqomo ama dantii dalkooda aan garanaynin ama dalo kale nacfi u leh ama faa'iido u leh ka shaqaynayo saddexdaas buugna ayagana dhawaanay soo bixi doonaan sanadkan dhammaadkiisay soo bixi doonaan laakiin buugga afraad baa wuxuu ahaa sooyaalka suubanaha nabiga caleyhi salaatu wasalaam ku saabsanaa marka sheekh soomaaliyeed oo aan aada saaxiib u nahay oo dadka aan cilmigooda iyo tarbiyadooda aada u tixgeliyay ka mid oo sheekh cabdixakiin sheekh cali suufi la yiraahdo baa wuxuu isiiyey talo dhahaysa haddaad rabto inaad wax qorto ka bilow midka siirada nabiga caleyhi salaatu wasalaam marka kuwaaga kale ay barakeyn doonaan marka sababta aan usoo hormariyay waxay ahayd bal in aan shaqadii koowaad inaan suubanaha caleyhi salaatu wasalaam aan ka dhigo wixii kusoo xigana markaas aan kusoo xijino hadduu ilaah yiraahdo saddexdaa buug kalena waxay soo bixi doonaan sanadkan dhexdiisa asagoo luqado badan u turjumaan hadduu ilaah yiraahdo si buwaagta kale kuugu fududaato ama ajir aa u heshaad u bilowda asaga waxaan siri talada sheekhaasaan qaatay wuxuu yidhi camalkii suubanaha laga bilaabo acmaasha ku xigtay barakaysaa marka waajibkana waa gudanayay tanna qayb bay ka ahayd marka sababta usoo hormariyay waxay ahayd kuwaan horta lagu barakoobo hore u dhaca buuggaaga waxaad ku sheegtay in ay kugu qaadatay muddo sanad iyo 8 bilooda wax caqabadaha inta qoriisa kusoo wajaha ma jiraan caqabadaha way badnaayeen caqabada lama dhihi karo waxaa la dhihi karaa culays culayska koowaad wuxuu ahaa afka Soomaaliga in wax lagu qoro wuxuu u baahan yahay hubin aad u fara badan waxyaabaha hadda intaan hawshan ku jiray aan bartay waxaa ka mid ah markaa wax qoraysid baa loo haystaa inay adag tahay ma afka Soomaaliga ku tahay ma af kale ku tahay ma aqaano kulay aniga buug in la qoro waa igu cusub tahay dadka buugta qori jiray baa si fiican u garan kara marka culayska koowaad la kulmay waxay ahayd sixidda yani wax ka badan 5 bilood 6 bilood waxaaba qaatayba in la saxo luqad ahaan loo saxo maraajicda la saxo meelaha ayadaha iyo tafsiirkooda la saxo hubinta waxay qaadatay waqtiga ugu farada badan waxaan maleynayaa intuu buugga daabacaada gaarin ugu yaraan 6 jeer 7 jeer waa maray oo aan qalin u qaatay oo aan saxay marka taasa waxay keenaysay marka inaad ku mashquusho caqabadaas mid bay ahayd tan labaadna waxay ahayd tarjamada aad u sahlan inaad buugga soo qaato aad turjunto inaad isku aadiso maskaxda Soomaaliga maxaa geli kara iyo maxaa way baahida ay u qabaan siirada ay u qabaan marka labadaas inaad isla heshaa waxay u baahan tahay qofkan Soomaaliga la hadlaysid sidee ula hadlaysaa haddana maxaa way baahida siirada laftigeeda laga rabo inuu qofkan Soomaaliga barto iyo qofka Soomaaligana maxay tahay inuu hore ka fahmo taana isku aadin bay u baahnayd waxyaabahan xasuustay waxaa ka mid ah canaawinta aan sameeyay Khadiija المؤمنين baan ciwaan waxa uu sameeyay la dhaho marwada koowaad marka nin sheekha oo culimadeeda kamid ah Sheekh Abdulqaadir Cabdidiiri la yiraahdo aan buug u diray inuu soo akhriyo wuxuu yiri marwada koowaad meesha u deedo way fiican tahay laakiin afka Soomaaliga tarjamo way first lady bay noqonaysaa sayid al-ula marka xubbigii iyo kalgacaladii loo qabay baa meesha ka baxaysa المؤمنين bay waxay u arki doonaan dadku markay akhriyaan qof iska caadi ah ahayd marka meeshaas hooyadii muuminiinta ama hooyo Khadiija ku bedel waxyaabay runtii aad ii soo jiitay oo aan dib u bedelay kamid tahay waxa kale oo aad ii soo jiitay nabiga Cali salaatu wasalaam oo aan si fiican u sii bartay markaad dhageysanaysay oo duruus akhrisanaysay oo iska mudaalaca ku jirtay marna waa maraad akhrinayso marka nabiga Cali salaatu wasalaam hogaamintiisa ummadda sidoo uu hagayay dagaalada sidoo uu hagayay maskaxdiisii oo ummadda ku badbaadinay waxa soo dhan aaday soo jiiteen buuggan waxaad u hibaysay aabaha la naxariistay Sheekh Maxamed Yaasiin Xaaji Daahir wax badan waxa hore uga sheekaysay inaa hooyo koris ahayd maxaa nooga sheegi kartaa taariikhda aabaha Allah u naxariisto wuxuu ahaa markii hore nin culimo ah oo qoys culimo ka soo jeeda markuu xoogahana qaadayna wuxuu noqday ganacsade aad iyo aad caan uga ah dhulka Soomaalida ay degto dhan ilaa Ethiopia ilaa Northeastern ilaa Nairobi
ganacsigiisi gaaray ganacsi aad u xoog badan oo markaas Soomaalidu ay ku shaqaysan jirtay oo baabuurey wax la dhahay ahaan jireen oo baabuur tareelayaasha la dhahay ku shaqaysan jireen 1974 1973 1972 nin Nairobi degan oo baabuurka ganacsada oo tareelayaal leh ilaa Uganda ilaa Zaire kabacdina ganacsigii iyo duruufas ku yimid darteed buu haddana wadankii Soomaaliya dib ugu soo laabtay marka nin waqtigiisa intiisa ugu badan ganacsi ku jira buu ahaa nin aad iyo aad u xagga diintana ku fiican cibaado badan salaatu leelka aad u tukada quraanka aad u akhriya caruurtiisana xorriyad fara badan siiya dhinaca kalena go'aanadiisu ay adag yihiin oo go'aanka uu gaaro aad iyo aad ugu adkaysta duruufo fara badan oo dalkii iyo dadkii iyo ummadii ay soo mareen buu qayb ka ahaayo Soomaalidu generation badan baa meel u guurguuraya mar meel u kala guurguuraya laakiin dadkii Ethiopia ka shaqeeyay Soomaaliya ka shaqeeyay ilaa Kenya ka shaqeeyay markii dambana duruufo ganacsi ah oo ganacsigiisii iyo duruufii uu ku jiray inta wax ku soo kordheen buu markii dambe wuxuu noqday dhankan Soomaaliya u soo wareegay markii dambena wadaad iska cibaadeysto cibaadadiisa aad ugu mashquulsan buu noqday marka sababta aan buuga ugu hubeeyana waxa weeye uu dhintay Aabba Allah naxariistay hooyaa nool marka waxaan ka fikiray bal hadduu aaba dhintay in asaga fadligeeda iyo ajirkeeda aan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala barakada buuga iyo barakada waxaan qabanayno in Ilaahay dambi dhaaf uu ku siiyo insha Allah ta'ala markii hore aad ka sheekeynaysay hooyo iyo inay hooyo ku soo korisay xogaa dadku waxay u qaateen in nina aaba jeclayn oo xogaa uu careysan camal ay dareemayaan maadaama aad uga sheekayno hooyo bis ka sheekaysay inkastoo hooyadu ay ajir badan tahay oo diinta iyo maalka lagu sheego marka waxa ku qanci lahayd dadka wallahi de sida loo fasiro waaye oo tafsiirka marka la sameeyo si loo sameeyo laakiin still hadalkayga hore waa ku dhaganahay aniga hooyadii ay soo korisay hooyo korisaan ahay dadka Soomaaliduna hooyo korisku Soomaali kaliya ma adduunka oo dhan bay ka jirtaa Imaam Shaafici hooyo koris uu ahaa culimada muslimiinta soo maray hooyo koris ahaayeen dad hadda adduunka madaxda ka ah hooyo koris ahaayeen marka waalidku de qof baa ku sameeya waxbarashadaada maskaxdaada duruuftaada sabab u noqdo marka taasa marka uu muhiimadda siinayo muhiimadiina wali waa ay leedahay doorka nolosha uu hooyo ku leedahay waa ka badan tahay doorka ay aabba ku leedahay qoysas far badan jiro doorka uu aabba ku leeyahay uu ka badnaa doorka ay hooyo ay ku lahayd marka aabahay Allah naxariisto marar baan u duceeyaa inuu Ilaahay u dambi dhaafo laakiin markan soo korayay ilaa hadeertaan hadda aabuu dhintay Allah naxariistay qofka aan ku xiranahay oo talo walba weydiiyo oo nolosheeda dhan kala tirto waa hooyaday oo aad u jeclahay runtii aabahayna hadda duuba dhintay 20 sano ka badan waa mootan yahay Ilaahay u naxariisto buugga sooyaalka suubanaha dhacdooyin iyo dhambaalo yaa gacan ka siiya daawacdiisa xageesa lagu daawacay buugga runtii waxaa jiro daar leeyahay daarul cilmi oo buugta diinigaana daabacda buug badan daabacday oo ayadu hawshan runtii qayb weyn ka ahayd inay hirgasho haday tahay xagga maraajicda haday tahay xagga hubinta haday tahay shaqo badan haday tahay hadda daabacada iyo haday tahay maxaan ku radaa qaybinta marka daartaasaan runtii hawshaas u wakiishay ayadana shaqada ugu fiican horena uga qabatay haddana ka qabanaysa la'aantoodna ma filaayo inuu guuleysan lahaa mashruuca buugga hadda qiimaha la iibiyo marka la fiiriyo xoogaa inuu qaaliyaha moodaa marka loo fiiriyo buugagta la qoro hadda dalkiyaa la geeyey dalka waa yaalaa dalal kale badanna waa la geeyey marka ma dhici kartaa in dadka qaarkood ay si lacag la'aan ku helaan sida ardada iyo maadaama aad ku talisay in xatii dadka ay ka faa'iideystaan ardada iyo jaamacadaha iyo meelaha asleeda ama iskuulada ma aanan ka fakirin inuu bilaash noqdo sababtuna ma ahan lacag kaliya in la raadinayo waxaan isniri markaan dadka daraaseynay shaygu markuu bilaash yahay ma akhrinayaan waxaa laga yaabaa inuu soo maro uu ka gudbo dadkuna hadda dad social media ku xiran bay noqdeen oo inay buug ku fariistaan waa ku adag tahay laakiin nooc dhiirigelin waxa ah ma rabtaa inaad wixii barato suubanaha sooyaalkiisa ma rabtaa inaad barato xogaa yar iska dhiib maxaan ku rahdaa akhri
intaas waxaa dheer dee kharashna wuu galay oo daabacad buu gelayaa, rar buu gelayaa, qaybin buu gelayaa, maktabadihii baa loo qaybinayaa. marka waxaasoo dhan baa markii la fiiriyay waxaa soo baxday in siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam qofka daneynaya xoogaa yaroo shilimaada inuu iska bixin karo oo akhrisan karo. ma aanan hadda ka fikirin bilaash in lagu akhristo, laakiin marxalad kale waa laga yaabaa. laakiin waxaan ka fikirnay inaan luqadaha kalena u turjumno. hadda tarjamada waxaa socota oo English in loo turjumo oo Ramadaanka aakhirkiisa dhammaan doonta. 3 bilood soo socotana inuu kan English soo baxaan rajaynaynaa. haddii kaa uu soo baxana waxaa ii qorshaysan inaan luqadaha localka regionka ah sida af Amxaariga, af Soomaaliga inaan u turjumo. iyo fikrad kale jirto in af Turki asagana loo turjumo. marka adu ilaa sanadkan waxaan isleenahay 3 luqadood oo kale oo caalami iyo localba ah inaan usii turjuno oo si loo sii faafiyo fariinta meesha ku jirta. wax yaroo uun dhaqanka Soomaalida wixii loogu talagalay inta laga hagaajiyo qofkaas si uu akhrisan karo loogu gudbiyo. marka qiimo loo gooyo rasmi ma jira mase meel ka soo la geeyo hadba meeshaas la siday tahay iyo cidda markaas iibinaysa loo fiirina. arrimaha qiimaha iyo waxaas oo dhan waxaan u xil saaray shirkaddan Daarul Cilmi. marka ayadaa duruufaha fiirinaysa hadba siday u aragtay u gadaysaa. waxaad si weyn ugu mahad celisay dad badan laakiin ugu muhiimsan yahay Sheekh Cabdullaahi Sheekh Xambali. kaalin noocee ah ka qaatay buuggan qoritaankiisa? run ahaantii waxaan rabaa inaan ku celiyo mahadnaqaas Sheekh Cabdullaahi Xambali. la-aantiis buuggan nuurka tiftiin ma arkeen, banaanka uma soo baxeen. 3 shaqo buu ila qabtay. shaqada koowaad waxay ahayd fikraddu wax ku lahaa in la curiyo buu wax ku lahaa. qodobka labaad uu wax ku lahaana waxay ahayd inuu maraajicda diiniga ah, aayadaha qur-aanka, axaadiista iyo meelaha laga soo xiganayo iyo tiim asaga la shaqaynayay hawshaasna qayb weyn bay ka qabteen. wuxuu kaloo qayb weyn ka qabtay inuu buugga laftigiisa tala ku darsaday oo wixii uu isleeyahay macno bay usoo kordhinaysaa buu kusoo daray. marka Sheekh Cabdullaahi Xambali la-aantiis runtii buuggaas ma soo baxeen. halbowle buu ahaa. iyo dad kale oo akhyaar ah oo ayaguna qayb weyn ka qaatayna waa jiraan, sida Maxamed Xasan Xirro, gudoomiyihii hore ee guddiga doorashada qoraa Soomaaliyeedna ah oo asagana sixidii af Soomaaliga qayb weyn ka qaatay. iyo saan haddaba kuu sheegay Sheekh Cabdiqaadir Cabdiiriyo aan u diray asagana akhrin guud, akhrin details kuma sameynin laakiin akhrin guud buu ku sameeyay. iyo dad kale duwan oo aan talooyin ka qaadanayay. runtiina waxaan aaminsanahay buuggan inuu dadka nacfi weyn u tari doono. anigana muddadii dheeraad aan u fadhiyay wixii dhiirigelinayay ahdaaf badan baa jirtay, laakiin ahdaaftii dhiirigelinaysay waxaa ka mid ahayd kow xaqa nabiga calayhi salaatu wasalaam qof kastoo muslima ku leeyahay dee inaad gudatid. buuggana waa ku sheegay. qodobka labaadna waxay ahayd ilaahay subxaana watacaala bini aadanka nimcooyin buu u qaybiyaa. nimcooyinka qofka siiya waxaa ka mid ah inuu magac yeesho oo shuhro uu yeesho. waxaa ka mid ah inuu xoolo helo, waxyaaba badan buu helaa. marka waxaan ku fakeray haddiiba magacaaga la yaqaano maad diinta iyo dacwada ugu adeegtid oo dadka iyo nebigana isku bartid oo meeshaas aa uga faa'iidaysid. marka runtii Sheekh Cabdullaahi Xambali dowrka uu kitaabka ku lahaa dowr aan laga maarmaynin buu ahaa. khayr allah siiyo, shaqo fiican buuna ila qabtay. dhacdooyinka saameynta kugu yeeshay buugga ku sheegta waxaa ka mid ah oo xusuusatay in darsi ku saabsanay siirada nabiga oo masjidka dabaqeynka ee Bakaaraha ku yiilay uu ka akhri jiray Sheekh Cabdullaahi Cali Xaashi. haddii aad xoogaa dib noo celiso xusuustaada ka waran xilligaas noloshii Fahad, sida qur-aanka aad ku baratay, diinta iyo xirnimadaadii. horta masaajidkaas masaajid dabaqeynka la yiraahdo suuq Bakaaruhu ku yaala. hadda inuu sidii u shaqeeyo ma aqaano, laakiin Sheekh Cabdullaahi Cali Xaashi baa darsi maalinta Arbacada ah buu ku lahaa. runtii nin aad iyo aad xamaasi u ah oo anaga jiilkanaga markaan joognay aqoontiisa adduunyada ugu leeyahayna ay aad noo soo jiidan jirtay buu ahaa. oo warbaahinta adduunka waxay qorayaan, siyaasadii adduunka waxay qorayaan iyo siiradii nebiga buu isku dhex samayn jiray oo maado macno laho qofka maskaxdiisa ku haraysa kasoo samayn jiray. laakiin xusuusteeda sidaan buuggan ku sheegay waxyaabaha ku haray waxaa ka mid ahayd markaad darsiga tagto qofka asagoo saa u taagan oo dhegeysanaya unbaa cashir ku dhammaanaya
ilaa qiyaastaada intay baxdo aad u malaynaysid dagaalkii Badr inaad taagan tahay oo aad fiirsanayso. mararka qaarna intay isaga laftigiisa xamaasoodo buu miiska garaaci jiray oo xoog ku garaaci jiray. wuxuu lahaa marka awood oo aad iyo aad u weyn. dhanka kale Sheekh Daahir oo Cabdi oo hadda boosaaso sheekh ka ah masjid Rawda fadhiyo caalim weyn oo Soomaaliyeed ah. asaguna masaajidka Ceel Hindi buu fadhiyay oo kitaabo ka akhrin jiray. darsigii iigu horeeyay oo diini ah oo aan noloshayda dhageystana Sheekh Cabdiqaadir Sheekh Daahir oo Cabdi baa iigu horeeyay oo masaajidka Ceel Hindi buu joogay. habeen makhribahan imid si fiican baan u xasuustaa. suuratul qasas safxada u dambaysa وفسرها فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا مفسرها marka mar xataa aniga waxaan isla cashirka u horeeyo qaatay xataa siyaasadu ahaayo oo darsi u horeeyo masaajidka aad ka timid. marka masaajidka inuu buuxay baan xasuustaa. Sheekh Daahirna markaas aniga nin aad u da'yarna waa ahaa, dhalinyarana waa ahaa, xerow markaas masaajidka soo bilaabayo baan ahaa. dadkii sheekha uu aqoon karay ama ay sheekaysan kareen kuma aanan jirin. laakiin runtii xusuusteeda aad buu ugu haray. 4 maalinna tafsiir buu akhrin jiray, maalinna siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam buu akhrin jiray. culummada kale oo dacwada ama saxwada baraaruga islaamiga waxa la yiraahdo uu ka yara dhaqan duwanaayo inuu dadka wax baro, dad soo saaro waa maskaxdiisa ku weyneed, xamaasada badan kuma weyneyn. dib baan waxaan ka darsayaa siduu u shaqayn jiray iyo siduu wax u akhrin jiray. marka inuu dad soo saaro oo tafsiirka soo bilaabo dhameeyo haddana soo bilaabo dhameeyo. culimmadii kale oo kabacdi aan wax ka akhristay intii uun jiilkanagii dacwada islaamiga soo dhexgalay oo saxwada islaamiga soo dhexgaleen intay akhristaan qaar badan oo kamida waa akhristay kutubadan xadiista tafsiirka inta culimada ay ka akhristaan. kabacdina Nairobi waxaan aad ugu la saaxiibay nin sheekh oo runtii dhintay Allah u naxariisto Soomaalida ay wada taqaano oo la yiraahdo Sheekh Maxamed Axmed Rable Boqolsoon buu caan ku yahay. jiilka hore baa aad u wada yaqaan, haddana kulli dadku way yaqaaneen. muddo 3 sano aan xero u noqday oo waliba waxaan u noqday oo adeege qofka asaga la fadhiyo oo la joogo oo mararka qaar danihiisa u qabto. kutubadii salafka hore marka akhriso waxa is leedahay meelo badan buu kaga dabeecad yahay. mararka qaar waxaan arki jiray inuu asagoo u lahaan jiray hal joog, cimaamad, koofiyad, khamiis, hal jooggaas markuu isbuucii 2 jeer camal buu dhaqani. dhar haddaa hadiyad loogu keeno dadku u qayqaybin jiray. reer adduunya ma ahayn. waxyaabaan ka xasuustana waxaa ka mid ah habeenkii markuu soo kaco jusi bar quraan buu akhrin, salaatuleyl buu tukan, maalintii oo dhan danihiisii wuxuu dacwadii buu qaban, habeenkii markuu seexanayo haddana jusi bar buu akhrinaya. marka runtii nin noloshiisu quraanna ku bilaaba quraanna ku dhameeyo buu ahaa. aqoonteeda labaad oo diiniga ah oo xooga xirnimo fiican aan ka qaatayna waa sheekhay hadda magaciisa aan dhowr jeer sheegay Sheekh Cabdiqaadir Cabdi Diiriye oo aqoon kala duwan leh, aqoon diineed leh, aqoon maadiyana leh. kutubada asaasiga ah xooga u wadnaa oo xirtu markaas akhrisan jirtay. raggii aan ka marsaday buu ka mid ahaa. muddo dheer buu firaaqa noo helay oo annaguna aan ka faa'iideysanay aqoontiisa. culimada kale oo ilaahay ii sahlay inaan ayagana kutubada qaar ka akhristo oo la sheekaysto oo wax ka dhageysto. Sheekh Maxamed Haadi oo caalim weyn oo Soomaaliyeed ah oo culimadii waaweyneed oo kontomeeyadii 60meeyadii dacwada islaamka wax weyn ka soo qabtay ah. iyo Shariif Cabdinuur aan xirtay wax ka baratay asaga ma ahayn, laakiin waaga waxa aad u jiray cajaladiisa aad loo dhageysan jiray. marka aduu aqoon yaro bawsi ah oo in yaro aan ku cibaadeysta aan ka bartay baan ka qaatay. marka culimadaas oo qolo walba waxun baan ka faa'iideeyay. laakiin fikirka nolosha iyo siyaasadda iyo fahamka iyo falsafada iyo afkaaraha nolosha meesha ay ka socoto qofkan aad iyo aad wax badan ka qaatay. markii dambena aqoon shakhsiya iyo saaxiibtinimo aan isku yeelanay waa Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil oo runtii muddo dheer muddo hadda 20 sano ka hor aad ugu mashquulay inuu fikir xoog ka saaro. wuxuuna ka mid ahaa culimmadii runtii afkaarteeda ku yeelatay saameynta ugu weyn ku yeelatay ilaa markii dambena aan ka saaxiibnay. laga yaabaa inay habboon tahay inaan sheego siyaasadda markaan soo aadayay baan kala tashtay. wuxuu igu yidhi aadan iska dhaaf,
waxba aadin faraha ka qaad wixii aad danahaaga qabsan kartay ummadda wixii aad u qaban karto u qabo inaa xoogaa ku yara mamanahay buu arkay oo aanan ka hareynin marka hadal markii siyaasadda aan dhex galay aan arkay inay runtiis tahay baan ku dhex arkay wuxuu igu yiri nin siyaasadda Soomaaliya iska dhaaf haddaa gelaysa laakiin mar baan kuu sheegaya markaas markay gaarto sug waa markay baan ku iri wuxuu yiri waxaa la ciyaaraa bahal la yiraahdo chess carabiga shatranji waa lagu dhahaa shaxdeena u dhowda marka waa ciyaarta ay dhahaan ciyaarta boqorada maskax baa lagu dheelaa oo marka la ciyaarayo marka ciyaar kale waxaa jirta la dhaho laadhuugu marka dee waa saan un baa dhihi wixii kaaga soo baxa unbaad arkaysaa marka wuxuu ugu yiri siyaasadda Soomaalida waa laadhuuye intay chess ka noqonaysa iska sug marka adu sheekhi warkiisa ma yeelinay waa waxan baa iska dadabaash laakiin runtii saameyn weyn buu igu lahaa ma asaga maadaama siyaasadda iyo faham badan oo u haysto muxuu inuu wax ku biiriyo xatee ama talooyin uu siiyo muxuu kugu diidanay asaga culamo marka la fiiriyo gaar uma aha xataa siyaasadda waa fahamsaya markuu khudbaynaa marka aragtid waxaan u malaynayaa inuu dad badan baa saas ku yiri oo anagaaba ku niri ma adiga laftigaaga soo gashid laakiin muu jeclaa wuxuu aaminsan yahay bulshada in qiimaha ay ku jirto in bulshada la dhiso aqoontooda la dhiso fahamkooda la dhiso noloshooda la dhiso runtii Sheekh Mustafana aqoonta ku jirto waxaan aaminsanahay ummadda Soomaalida inaysan si fiican uga faa'iideysanin waxaan dhahaa waa maskax caalami ah laakiin luqad loo kala ku hadasha haddii uu af carabi ku hadli lahaa ama ingiliish ay noqon lahaayeen duruustiisa ama carabi noqon lahaayeen runtii anoon ku dardaraynin Sheekh Mustafa wuxuu la mustawa noqon karay culimada waaweyn ee caalamka islaami fikradaha ku soo kordhiyay Maxamed Qutbi iyo Abu La'la al-Mawdudi iyo laakiin maskax caalamiya uu xambaarsan yahay laakiin luqadii baa waxay noqotay luqad local ah laakiin 20 sano u dambeysay wuxuu yiri iska dhaafay dadka qaal Allah Taala iyo qaal Rasuulullah in baa u sheegay warkii tirada badnaa uma sheegayo waxaan u malaysaa booskii oo fikirka iyo falsafada iyo nolosha iyo diinta 20 sano 30 sano ka hor oo Sheekh Mustafa xoog ku lahaa hadda waxaa ku jira Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Bashiir oo Mareykanka degan oo noloshiina akhriya diintiina akhriya fahamkii siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo noloshana aad u akhriya runtii asaguna door weyn buu buuxinaya inkastoo weli aan qabo midii Sheekh Mustafa aan ka qabayo asaguna luqad loo kala ku hadlaya asagoo fikirkiisu oo fikir islaami caalami uu yahay marka culimadaas culimo runtii jiil isdhaxdhaxlaya oo soo bedelaya waa jeeska hadday inay gaartay in kale ma dib ma xiriirtay ma weydiis ayaan dhaxan mar la hadlay marka wuxuu ugu yiri wali jeeska ma gaarin walina waad ku jirtaa Allah ku sahlo agaasima Fahdow aqoon intee la eega u leedahay diinta waa maadaama ay qaybo badan tahay hadda qaybta wax ka qorta siirada ay tahay axaadiista iyo fiqhi iyo xataa qaybta kale naxwaha wax badan jira marka ma dhamaan wax badan ka haysataa ma qayba gooni xoog u saartaa jirta ma yani hadda aqoon diineed runtii aan hadda leeyahay aqoontaas aan leeyahay ma jirto nolosheeda intii ugu dambeysay oo marna warbaahin baan ka shaqeynayay marna waxaan ka shaqeynayay siyaasad laakiin tababarkii la diyaarinayo hore inaan sheekh noqday ahayd yani wixii marka hore la igu tababaray oo imaam masaajid waa noqday saan hore u sheegay macallin dugsi quraan waa noqday arday fara badan baan kiciyay oo quraan baray masaajid imaam waa ka noqday muddo dheer waliba haddii jidkaas aan kusii joogi lahaa waan u malaynayaa inaan xoogaa meel fiican aqoon fiican iisoo kordhi lahayd laakiin markii horena dee xoog badan iyo aqoon badan ma yeelanin oo aan dhihi karo hadda sheekh baad ku noqon kartaa fanni aan isleeyahay xoogaa waxbaa kaaga bilaabana fanniga usul fiqiga baa ka jira oo runtii daraaso fiicanna aan ka haysto markayga horena aan si fiican isleeyahay in macquul ah waad ka baratay intii uun la baran karay haddana faham fiican ka haysta siyaasaddan iga anfacday oo usul fiqigu wuxuu mar walba ka shaqeeyaa wax inuu kala doorto mafsado maslaxada laftigeeda qeybo u kala saarayo fahamka diinta oo nolosha lagu dejinayo marka runtii barashadaas laftigeeda nolosheeda iyo maskaxdeeda wax weyn ay ka tartay laakiin buugga siirada aqoontii luqadda carabiga aan u lahaa iyo intii hore aan usoo bowsaday baan isku daray intaas waxaa ka soo dhex baxday
dad badan waxay aamin leeyihiin agaasime nin siyaasiya haddana taliya sirdoon soo noqday oo sirdoonka soo shaqeeyay inay diin ka dhigeystaan marka dadkaas maxaa ku qanci lahayd maxaa inay buugiisa diin ka akhristaan oo diinu qoryo la yiraahay dad badan ma aamini karaan marka loo fiiriyo oo habka soo marta horta saddex jawaabood waaye su'aashaas aad ay u soo noqotay marka inaan hadda ka bogto waa jeclaan lahaa siyaabo kala duwan ay igu timaadaa horta number 1 nolosha in la kala saaro waa fikir oo secularism ah oo calmaani ah oo la dhaho adiga masaajidkaad ku joogtaa masaajid ku ekow adiga siyaasadda ku jirtaa siyaasadda ku ekow adiga sirdoona ku jirtaa ku ekow marka horta qofku hadduu muslim yahay waxaa laga rabaa inuu ilaahayna caabudo ummadiisana uu caawiyo oo wuxuu u qaban karo uu qabto hadduu wax kale u qaban karin xataa inuu uusan dhibaateynin haddii kalena cilmi iyo maskax wuxuu ku kordhin karo uu kordhiyo marka horta mararka qaar kaftan baan dhiibaa waxaan dhahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam lama kala lahan ninka masaajidka jooga iyo ninka sirdoon ka shaqeynaya iyo ka siyaasadda ka shaqeynaya nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa wada leeyihiin nabi buu u wada yahay nabigan calayhi salaatu wasalaam intaba waa ahaa dowlad buu ka dhisay madiina dagaalkii ghazwat al-ahzab oo kii ugu halis badnaa muslimiinta ku soo dhacay ah oo duulaankii ay khatarta u galeen madiinaba in laga qabsado ay ka gaartay oo ay cabsadeen muslimiintii oo nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiiba ay dareemeen culays iyo ghazwat al-khandaq oo يعني وحي لو بربوريه دغالadaas ficil sirdoon u ahaa kuwan in war loo sheego kuwan balanta waa idin kaga baxeen la dhaho kuwan war loo sheego hadal baa lagu burburiyay marka horta shaqada sirdoonku waa shaqo ay ku dhisan tahay taariikhda iyo taariikhda suubanaha iyo taariikhda islaamka ma jirto dagaal nabiga calayhi salaatu wasalaam uu qorsheeyay oo san cadowga ula dagaalamayo xogtiisa raadinin marka hore dad uu soo dirinin mako nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu joogi jiray dad u soo warrama oo xogta u soo dira oo u keena marka horta sirdoonku nolosha dadka muslimiinta qayb weyn buu ka ahaa hadda sheekh waxaa jira Soomaaliduna taqaano caalamka muslimiinta oo dhan ay yaqaaniin dadka xirta Soomaaliduna ay u taqaano sheekh qoray maqaamaat al-Hariri oo dadku markay luqadda baranayaan mucallaqaad iyo maqaamaat waa labada fanniyo ee labada kitaab is fiican u akhristaan wakiil sirdoon buu ahaan jiray markii intuu sirdoon ku jiray buu kitaabadan buu qoray Salaaxudiin gowlaha ugu waaweyn oo gaaray markuu wax dhisay waxay ahayd inuu sirdoonkaas uu xoog u dhisay taariikhda islaamka marka akhrisana saameyn weyn bay ku leedahay xataa dawladda islaamka markay dhismaayeen iyo markay dumaayeen taariikhda siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam saameyn weyn bay ku leedahay waxaan rabaa inaan hal sheeko ku daro oo runtii aad iyo aad ii anfacday markii nabad sugidda agaasimaha la igu magacaabay baan waxaan u tagay Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo hay'adda culimada Soomaalida madax ka ah sheekh Soomaaliyeedna runtii aqoon fiican leh ana u haysto inuu yahay nin aqoon diineed oo buuxda oo fiican oo macquul ah leh marka waxaan ku yiri meeshaasaan u socdaa xilkaasaan qabanayaa cabsina way iga haysaa macnaheedu hadee nolosha markaan soo kornay mogtahay sirdoon iyo nabad sugid iyo meel uun maxay ahayd wax si kala ah psychologically culays weyn bay lahayd haddana shaqadii saxaafadii dhinaceeda ka timid oo wax qarid ayaan marka caalam oo aan aad uga baqaayo waa markaan soo galay marka intaan u tagay baan ku yiri sheekho bal ii fatwo marka runtii hadalku igu dhahay ilaa hadda ma ilaabin sidoo igu sharxayna waa ku yara qaboobay wuxuu igu yiri number 1 dalka wuxuu leeyahay qawaaniin iyo shuruuc qawaaniintaas iyo shuruucdaas waa inaad dhowrtaa oo aadan ku xadgudbin laba wuxuu yiri meesha ka shaqeynayso waxay leedahay habraacyo iyo xeerar bay leedahay yani warka si baa lagu hubiyaa hadii qof maxkamad la geenayo xeer baa la maraa hadii wax la yani xeer baa jira ku qoran dalka midkiisana waa inaa ilaalisaa buu dhahay kan hay'ad uu qorana waa inaa ilaalisaa qodobka saddexaad oo aad u sheegay waxa waaye wuxuu yiri adaal raba inaa qalbigaaga ku xukumo waa sidee ma yiri wuxuu yiri qalbigaaga wuxuu kugu xukumaya waxa aad sameynayso ma qof baad ku dhibaateynaysaa ma dan shakhsi aad uga shaqeynaysaa ma dulmi baad uga shaqeynaysaa
mise danti guud oo xeerkii hay-adda iyo xeerkii dalka wixii badbaadinayay waajibka ku saarnaa baad gudanaysaa yani wuxuu u jeeday baan u fahmay inaadan qof dee maadaama adiga aad dhib shakhsiga ugu qabto inaadan u marin sharciga inta u maroojiso aadan u aadin tan afraadna wuxuu yiri waa la khaldami karaa haddaa khaldanto waa inaad laba tallaabo qaado horta khaladka inaad ictiraafto tira waxaan waa ku khaldanay magteeda inaad iska bixiso noocay rabta ha noqoto raaligelin ha ahaato qof hadduu dhib soo gaaray dhibkiisii magtiisii la bixiyo haddii marka afartaas shay aad ilaaliso wuxuu yiri waa shaqo fiican haddii laakiin afartaas aad mid ka mida ku xadgudbo haddii adiga unbaa khalad isku sameeyey marka runtii yani waxaan aaminsanahay qofku marba hadduu muslim yahay waa inuu noloshiisana waajibka ka saaran waxa waaye wuxuu qaban karo inuu qabto marka isma diideyso ka waran dardaarankii muddaa joogta meesha ma waa fulisay mas'alada waa fuliye ma dhihi karo laakiin waa dadaalay aad aan dadaalay intii aan dadaali karo waa dadaalay leanna sirdoonka waxaan ku dhisay wixii maqaasidda islaamkeeba ka shaqeysaaba shantii maqaasidda islaamka ka shaqeysaa yani nafta bini aadamka in la ilaaliyo dadka qiyamkooda oo diintooda ugu horeyso in loo ilaaliyo maalkooda in loo ilaaliyo cirdigooda loo ilaaliyo marka hadda sirdoon intaasuu ka shaqeeyaa oo falsafadii hore oo sirdoonka hadda waa laga soo tegay adduunka waagii hore falsafada sirdoonka waxay ahayd in ninka boqorka ah ama ninka madaxweynaha ah asaga iyo dadka la kala ilaaliyo laakiin hadda sirdoonka wuxuu ilaaliyaa dadku ilaaliyaa muwaadiniintu naftooda iyo buu ilaaliyaa dowladnimadana wuu ilaaliyaa oo qarankana wuxuu u yahay waardiye marka labadaas haddaad ilaaliso haddii kolley bini aadan baa tahayoo boqolkiiba boqol ma noqon kartid malaa'ig laakiin haddaad xuduuddaad horta taqaano waa inaad u dhawaato mar walba inaad ku dadaasho laakiin dadku waxay dhahaan xilligii fahad uu joogay nabad sugidda xilligii ugu awoodda badneedoo dadka iyo madaxda aada loogu siyaasadda loogu isticmaali jiray ahayd sheeko dheer waaye waa qaarkood waa propagando qaarkoodna haddii wixii qaanuun baa jira qaanuunka laftiisa qofku inuu dardara ma aha waa inuu meel celisa ay jirto oo la istaajiyo marka fahad oo siyaasiyana waa arrin fahad oo taliyana sugidna waa arrin kale culummada diinta xiliyadan dambe culamo caan ahoo muddooyinkii dambe soo baxaa jira oo kuwii hadda ka sheekaysa qaarkood ka duwan inkastoo sheekh mustafana uu hadda caan yahay marka ma jirtaa dad caan ahoo aa ku dayato oo hadda culummada hadda xilligaana ma jiraan oo ama aad la kulantay ama adoon la kulmin aad ku dayato walaahi culimo fara badan oo muslimiinaha jira haddii soomaalida ka baxsanba soomaalida intaan kaaga sheegay iyo kuwo kaloo fara badanba way jiraan oo qaarkood aan xer u noqday qaar aan waxyaaba qaar ka bowsaday qaar aan la fariistay iyo qaar calaa mustawa alcaalam alislaami culamo ahoo intaan yaman joogay oo jaamacadda aan ka dhiganayay culamo fara badan oo caalam islaami ragga ugu waaweynaa ah qaar ka mid aha ama jaamacadda maamulayay ama la joogay waxaa ka mid ah sheekh cabdilmajiid azandani oo caalim weyn oo cilmul ijaaska ku takhasusay jaamacaddana aasaasay hadduu u dhintay allah u naxariisto oo runtii calaaqadeena aysan marna go-in intuu noolaa duruufihii yaman xataa ka dhacay iyo wixii ka dambeeyey mar walba xiriir joogto ah aan la lahaa kutubo fara badan oo jaamacadda ka dhigay oo asagu qoray caalim kaloo ciraaqiyaa jiray isaguna runtii oo fiqi lxanafi ku takhasusay iyo usuulul fiqiga cabdikariim zaydaan la yidhaahdo isaguna waa dhintay allah u naxariisto iyo caalim kaloo isaguna muftiga yamanba noqday maxamed ismaaciil camraani la dhaho fiqiga aada iyo aada ugu ahaa mutakhasis kaftan badanna lahaa oo sheekooyin fara badan mar walba ka sheekeyn jiray aqoontiisana ayay ku jirtay aqoon oo bulshada u dhow ahayd marka dee culimada soomaalidu ama culimada caalamulislaami saameyntii kugu yeelanaya hadda sheekh walba meel unbuu kaa saameynay mid fikirku kaa saameynay mid dhaqanka suuban buu kaa saameynay mid tacliintu kaa saameynay marka dee mid walba intii aan isleeyahay waa ka faa'iideysan kartaa waa ka faa'iideystay soomaalidu culimada soomaalida qaybo badan ay u qaybsamaan adiga waxaa la sheegaa inaad qaybta wahaabiyada ka mid tahay horena waxaa u sheegtay inaad ururkii al-itixaad aad xubin ka soo noqotay marka qaybta salafiya jadiida qaybtan ah mase waaba nin kaligiis hadda ahoo diintiisa ku filnaata maadaama kitaab inaad ka qortaba i gaartaa noqoto hadda meelaa ku xirantaa ma jirto
ما horta dee xagga diinta xerow xataa ma gaarin waa bowsi baan joogay wahabina dee koox ma ahan magac iska naynaasa waaye oo dee horta qoladaan ahay waama sheegayba salafina waan ahay nidaam ahaana ururka itixaad baan u ahaa marka magacyadan aad loo kala qaybinayana ma jecli runtii haddana xoogaygu wuxuu saaran yahay inaan siyaasadda aada uga shaqeynayo muddadii u dambeysay marka dee cid kasta oo khayr wada inaan khayrkaas kala shaqeeyaan rabaa koox hadda aan leeyahay kooxdaas baa kooxdaas ka fiican ama kooxdaas kuwa ka wanaagsan ma jirto itixaad alislaami oo hadda ictisaam ah dee waa ururkii aan kusoo koray oo aan ku barbaaray welina aan ka aaminsanahay inay dacwada soomaaliya iyo diinteeda wax weyn ay usoo qabteen culummada kale iyo xarakooyin kalena ixtiraam weyn iyo qadarin weyn baa naga dhexaysa hadday tahay culummada suufiyada hadday tahay culummada salafiyada qeybaheeda aqoon muslimiinka tabliiqa nin walba dee majaalka ummadan u buuxinayo in lagu taageeray ay mudan tahay runtiina haddii laftigeenagu maskax ahaanna waa u kornay da ahaanna waa u kornay kala qaybinta markii lagu shaqeyn jiray waxa ummadana uma tarayso islaamkana wax uma tarayso waxa fiican inta la iska fahmi kara in laga shaqeeyo haddana runtii waxaa u malaysaa biseelkaas dee waa aragtaa shirarka culummada xamariga lagu qabto darafyadii aan is arki jirin intay isugu yimaadaan ay mawaaqif siman ay soo qaadayaan marka jihaadigana dee saa u rabtid ma aqaano laakiin anuu meeshaan dhexdan baan iska joogay meel kale uma leexan buugga sooyaalka suubanaha waxuu ka kooban yahay 11 cutub inta badan qayb yaraa gadaal ka raacisay oo aad ugu magac dartay falaqayn iyo fiiro gaara qaybtaas maxaa u leeyahay runtii waxaa jira fanni dhan ilaahay idinkiisna haddii waqti aan u helo oo cumrigan ilaahay daayo waqtina aan u helo kan waxaan ugu talagalay siirada suubanaha oo sooyaalka suubanaha u bixinay waxaan ugu talagalay qof aanan aqoonin ama qof raba inuu af Soomaali ku akhriyo baan ugu talagalay marka falanqayntu waxaa waaye fiqi dhan waxaa jira wax la yiraahdo fiqh siira oo kitaabo gaar laga alifay culimo waaweyn ay wax ka qoreen marka runtii markaad daristo suubanaha calayhi salaatu wasalaam waxaa ku soo baxaysa inuu 3 shay oo waaweyn ummadda u hayay kow caqiidada inuu ka dhisayay oo ilaahay inuu ku xiro cibaadadiisa ilaahay kaligiisa inay caabudaan alla ku xirnaadaan hawsha labaad oo nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ummadda u hayayna waxay ahayd inuu bulsho ahaan isku xiro oo bulsho isku xiran ay u noqoto wuxuuna shaqada ka bilaabi jiray wax bulshada isku keenaya yani masaajidka suuqa ayaga in la walaaleeyo waxa bulshada ay ku wada noolaan karaan madiina markuu yimidna 3 shay oo asaas oo ayadana ka qabtay horta dadkii inuu walaaleeyo masaajidkii markuu u dhiso suuqii u dhisay dadkii inuu walaaleeyo dadkii deganaa reer madiina ahaa ee muslimay iyo kuwii aan musliminna inay reer madiina yihiin inay aaminaan oo madiinadnimadu magaalada qof dadka wada degan inay noqdaan dad asaas u ah waana kan la heshiiyey yahuudi oo heshiis la gaaray markii dambana waxa la yiraahdo dastuurkii madiina sameeyay waxyaabaha kale oo u baahan tahay in aad u daristo oo in casharo laga soo saaro u baahan waxa waaye nabiga calayhi salaatu wasalaam sulhul hudaybiyah soo ku sameeyay saxaabadii qaarkood diideen oo Umar uu arkay in la isjilcinayo oo la isjabcinayo uu arkay sulhul hudaybiyah ana fatx Makka keentay oo tamaysay xataa quraanka nasri iyo fatxi laba uu kala saaraa yani nasrigu waa inaad meel gaarto laakiin fatxigu waa inaad umadiina hesho oo dadkiina ay qalbigooda aad hesho marka nabiga calayhi salaatu wasalaam Makka markuu imaanayay dadkii qalbigoodii uu furtay ee magaalada kaliya ma uusan furanin waxaan arkaysaa inuu dadka darsi jiray oo ummadda uu xoog badan u gelin jiray sidii u fakarayaan waxyaabaha aniga suubanaha calayhi salaatu wasalaam aad iiga soo jiitay waxaa waaye dhacdooyinka siirada marka akhrisana dhibaato yar markay dhacdo ama xadath dhacdo ay timaado noocay rabto ha ahaato mustaqbalku la akhrin jiray ma fiirin jirin tan see lagu xaliyay wuxuu la akhrin jiray tan maxay mustaqbalka ay saameyn ay kaga yeelanaysaa wuxuuna isku dayi jiray mustaqbalkaas inuu wanaagsanaado oo wax ummadda u fiican
inay noqoto. Wax kaloo xooga saarayana waxay ahayd dadka inay noolaadaan oo dhaqaale sameeyaan oo dhaqaale helaan oo isku filaadaan oo qaninimada iyo taajirnimada yani quraankana aad buu u dhiirigeliyay dadku inay shaqaystaan. nabiga calayhi salaatu wasalaamna wuu u dhiirigeliyay xataa quraanka marka akhriso jihaad marka laga hadlayo maalka horeeya iyo nafta. casharatu mubashiriin dad wada ladan bay u badnaayeen, qoysas ladan ka yimid ayaguna lahaa dad oo dhaqaale haystay. abubakar waxa ugu badan uu qabanaya waxay ahayd nin ganacsadaha oo shaqaynaya buu ahaa. qofkii muslim oo la dhibaateeyo bilaal ibn rabiixa kala bilaal ibn rabaah isaga iibsaday. qofku arkay inuu dhibaateysan yahay jiscin iyo wuxuu siin karo siinayay. marka runtii marka nabiga calayhi salaatu wasalaam fiiriso noloshana inuu dadka fahamsiiyo buu waqti badan. midda u dambayso nabiga calayhi salaatu wasalaam bulshada uu fahamsiinayo waxay ahayd waxaan la yiraahdo alqiyam, valueska qofka in la dhiso, damiirkiisa in la dhiso oo ballanta runta. nabiga calayhi salaatu wasalaam dhagar ma aqoonin, yani qofka hadday ballan wada galaan xataa hadduu gaal yahay ballantaas uu fulin jiray. dhagartuna dhaqan ambiye ma ahan, alambiyaa laa taqdur, ballan kama bacdo. marka qofka muslimkan waxyaabaha la raba inuu bartay ka mid tahay. marka siirada waxa ugu muhiimsan maaha dhacdada inaad akhrisatay, waxa ugu muhiimsan waxa waaye inaad dhacdada casharada ku jiro aad ka faa'iido si qofkan valuegiisa qiyamkiisa shakhsiga ah ay u dhismaan. waxaa la dhahaa xataa markii dowladnimada loo yimaado musuqmaasuqa waa lala diriraa marka la leeyahay. sida ugu fiican oo musuqmaasuqa loola diriri karo guddi musuqmaasuq la dagaalan maahan, waa damiirka. laakiin hadduu qofku damiirkii ka tago waa qof faaruq ah ama waa qof meyda oo iska socdo dabeel raac ah. saa darteed dal ma badbaadin karo, ummad ma badbaadin karo. haddaa aragto qof leader oo wanaagsan waa qof damiirkiisa nool yahay. haddii qofka damiirkiisu wax ka halaabaan qiyamkii buu gadi, diintii buu gadi, dalkii buu gadi, dadkii buu gadi. hadhowna waxaa soo bixi qof qiyam ka baxay. saa darteed kutubta ugu horeyso quraanka iyo suubanaha taariikhdiisa qofka qiyamkiisa marka meelaha u baahan in la sharxo oo dadku si ay ugu xirmaan bay ka mid tahay. falaqayntaas iyo fiirgaar ani markaan akhrinayo waxaan islahay xaaladda dalka iyo adduunka hadda suu yahay iyo dowladaha ka shaqeeya gaar ahaan Soomaaliya maadaama uu maamulka soo shaqeeyay waxaas uu nabigu sameey jiray oo hadda heshiisyada iyo dhimrinta iyo ashaygiisida ku dabaqi doonaa. marka ina xaaladda ku dabaqi weydo maxaa keeno si guud leh u sheekaysa. waxa waaye waxaan buug ugu talagalay in dadku siirada ka bartaan, laakiin fiqiga waa kitaab gaar ah u baahan tahay. marka insha Allah hadii Ilaahay cimri idaayana waa soo wada taas u baahan in waaqic lagu dul akhriyo oo lagu fiiriyo. luqadda carabiga si fiican aad u taqaanaa oo waana ku soo shaqeysay. luqaddaas carabiga halkee ka baratay meesha ka baratay iyo sidoo kale muhiimadda afka carabiga uu leeyahay waxa uga hadashay buugga 34 ee buugga. ma isleedahay maadaama siira ka hadlaysa in luqadda carabiga lagu qoro ay ku habboon siirada kasoo ka soo sheekayso sababta Soomaaliga ugu qortay haddii carabiga ku qori lahayd iyo hadda yaa isleedahay waxay sabadan tahay. horena waxaa noogu sheegtay in la tarjumi doono buugaan oo luqado kala duwan oo fara badan lagu tarjumi doono. marka carabiga dabcan waa kamid yahay saylata. carabi wali kama fakirin in lagu tarjumo. maskaxdeedana waxay ka imaanaysay doorkaas waa buuxa shaqo fiican baa laga qabtay oo culimo fara badan oo runtii aad iyo aad cilmi u leh aqoon u leh baa aad wax uga qoray. qof kastoo luqadda carabiga yaqaan wuxuu helayaa maraajic iyo kutubo aad u fara badan buu helayaa. marka aniga maskaxdeeda waxaa ku jirtay baahida meelaha ay ka jirto inaad buuxiso. laakiin waa fikrad fiican in laga fakaro oo nusqa carabiga la sameeyo fikrad fiican. laakiin aniga focuskayga wuxuu ahaa dadka aanan carabiga wax ku akhrisanin wixii aad gaarsiin karto gaarsiin. carabiga marka adiga halkee ka baratay marka hore? carabiga yaraanteediina waxbaan ka yara bartay oo iskooladii carabigan wax ku soo bartay aniga oo masaarida baan wax ku soo bartay. dugsi hoose dhexe iyo qaybo kamid ah dugsiga saraba luqadda carabigan ku dhigtay, jaamacadda carabigan ku dhigtay. markii dambena waa ku shaqeeyay. marka ani tacliintayda oo asaasiga ah ilaa heerkeeda jaamacadda kulli waa luqadda carabiga iyo saxaafadan jeclaana
ayadana way kaalmaysay xerownimadii hore oo xogaagii aan soo akhristayna way kaalmaysay marka waxaan oran karaa luqadda carabigu yani noloshayda oo dhan bay ku jirtay waxa hadda hal mar aan bartay aan dhihi karo ma aha siirada nabiga marka laga hadlayo waxyaalo badan oo la isku khilaafsan yahay jira iyo xataa axaadiis saxnimadooda arrimahaas sidee xal ugu heshay tusaale ahaan dhalashada nabigoo kale oo soomaaliduna ay mawliidka ay u taqaano oo kamid ah waxyaalaha la isku khilaafsan yahay marka arrimahaas sidee xal ugu heshay horta arrimaha khilaafka waa ka fogaaday intaan ka fogaan kari waa ka fogaaday waxaan ugu talagalay inaan si tartiiba loo akhristo waan ugu talagalay waana sax midda dhalashada nabiga calayhi salaatu wasalaam hadda taariikhdii doodeeda way jirtaa exactly taariikhda doodaha ka jira sida aan sameeyana waxay ahayd doodii oo dhan baa meesha ku sheegay oo aan sideeda ugu sii daayay marka maadaama aniga aanan shiikhna ahayn qof go-aan gaari karana aan ahayn oo mas'alo sharci ah aan ka fatwoon karin oo aan oran karin saasaa sax ah waxaan ku talagalay xuduudeeda inaanan ka bixin wixii aan marjic u hayo oo culammada ay sheegeen dee marjicaasaan cuskanaya aniga yani natiijo aniga aan gaarayo ma ahayn marka haddaad rabti inaad wax faa'iideyso waxaa fiican inaad positionkaaga aadan ku ekaanin saa darteed xataa haddii mas'alo khilaafiya aan meel aaday waa meel aan culammada ka soo xigtay go-aan aniga aan rajaxay oo aan awooddaas ku gaaray aqoon diiniya umaba lihiba marka masaa-isha khilaafiga horta ka leexan kara waa ka leexday kuwii khilaafi ku jirana xoogaas sidii aan u taataaban karo un baan u taataabtay dhalashada nabiga waxay ku beegneed sanadka loo yaqaano sanadkii maroodiga sidoo kalena waxaa caan ku ah siirada hijriyadii koobaad iyo labaadba oo maangalyo ay asxaabtu weydiisteen boqorkii xabashada ee Ethiopia sidoo kale waxay ku beegan tahay xilligii isla boqorkii xabashada boqorkii kale oo weeraray Kacbada marka aad ugu fasirtay buugaaga waa ka sheekaysay xaaladaha ay soo mareen arrimahaas oo dhan aad uga sheekaysay marka sidee dadka ugu fasiri kartaa labadaas boqorkan asxaabta badbaadiyay oo nabadgeliyay iyo midkaas ku duulay Kacbada horta way dheeraanay haddii la sharxo laakiin waan soo koobaya su'aal runtii su'aashaana su'aal aad u fiican waaye haddaan si kooban u dhaho nin caaqila iyo nin doqon bay kala ahaayeen abraha nin doqon oo kibri oo aad u qooqay buu ahaa najaashina nin caqli badan oo xakiim oo aad u degan buu ahaa waxaa ka garan kartaa abraha sheekada dhan markii laga soo tago wuxuu dhisay dhismo uu leeyahay waxaan ku bedelayaa Kacbadii hadda kadib halkaan la imaan doonaa nin carab oo xanaaqsan baa yimid meeshiiba wasakheeyey wuu ku dhex feegaaray dadka culimada qaarta waxay sheegaan ku saxarooday saxaradii intuu soo qaado darbiga ku daadaadiyey albaabka maruu ka baxayna wuxuu yidhi abraha loo sheego meesha inaysan Kacba noqonaynin dee nin duqyaan ku jiro oo qooqan buu ahaayo awood fara badan isdhibayay oo meeshana dee inqilaab ku qabsaday oo boqortooyada matalaya xataa inqilaabay oo dadkana aad iyo aad u dhibaateynayay buu ahaa dhacdadan yar tahay oo ay ku filaydba inuu meeshiisana iska dhaqdo oo hadduu u batana ninka carabka ciqaabo buu horta u haligay boqortooyadiisii oo dhan buu u haligay oo kan dhahayo Kacbada dhan baan soo burburinayaa ilaa markii dambe dee uun sidii quraanka lagu sheegay ay ku dhacday alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashaabil fiil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul yani qisas quraanka ku sugan oo ka jil akhrisanayo bini aadam joogo nin kibray buu ahaa oo tuqyaan ku dhacay sadarteed marar badan waxyaabaha laga fahmay waxa kamid ah qofka markuu xukunka kuna raago awood fara badanna uu helo wax yar oo ay ku filan tahay inuu ninka carabka ah inuu ama xiro ama asaga talaabo ka qaado masaajidka meeshiisii beenta ahaydna uu iska dhaqdhaqdo unbuu tuqyaankii wuxuu u aaday meesha dhan baa soo burburinaya marka mararka qaar qofku markay awoodda ka tambadato oo qooq uu gaaro wuxuu gaaraa inuu wax walba uu sameeyo najaashi laakiin waxay ka mid tahay waxyaabaha nabiga calayhi salaatu wasalaam
nebinimadiisa caddaynta u ah bay qeyb ka tahay. oo nabiga caleyh salatu wasalaam isagoo jooga wuxuu daraaso ku sameeyey xaakimkii markaas xabashi haystay oo najaashi ahaa. najaashi horta de waa magac hadba qofkii jooga loo bixiyo sida fircoon oo kale ah, laakiin isaga magac kale uu lahaa asxum baa la odhan jiray. nabiga caleyh salaatu wasalaam wuxuu u darsay ninkan shakhsiyadiisa, waana meelaha aad ka garanayso suubanaha liidarnimadiisu sida ay ilaahay subxaana watacaala hibooyin uu siiyey. wuxuu yihi ordaha ninkaas aada, sababtana uu sheegay wuxuu dhahay malikun laa yudlamu cindahu, waa nin agtiisa aan dadka lagu gardaraysanin. marka isagoo kiristaan ah, diin cusub dad sheeganaya, deegaankiisi ahayn, ba wuxuu dhahay hawshiina u taga, dhibaato kalama kulmaysaane. marka labadooda taasay ku kala duwanaayeen. nina inaan dadka dulminin buu ahaa, nina nin dulmi ka shaqeynayo buu ahaa. marka farqigaasaa u dhexeeyey. buuggu wuxuu ka kooban yahay noloshii suubanaha dhalasho ilaa iyo geerida. waxaa kusoo koobtay inuu kusoo gabagabeysay tilmaamihii suubanaha. ma jiryaa cutub saameyn kugu yeeshay ama si gaara ah ugu tali lahayd in laga faa'iideysto oo cutubyada kale wax weyn dheer? waxaan ku talin lahaa in kitaabka o dhan la akhriyo kulligiis in la wada akhriyo, kabacdina qofka asaga ii sheegoo dhaho warniga meeshaasaa aada ii soo jiidatay ama meeshaasaa u baahan tahay inaa badisid. muhiim waayo qodobka inaan sheego, siirada nabiga caleyh salatu wasalaam markii la qoraayo waxaa lagu qoraa inta badan taariikhdaa la raacaa. yani dhacdadan sanadkaani dhacday, sanadkan dhacday, sanadkan dhacday. aniga saa ma aadin, waxaan aaday wixii islaba inaan israaciyo. yani maalan duulaanadii nabiga caleyh salatu wasalaam waxaan ka dhigay hal cutubaan ka dhigay, tilmaanta nabiga caleyh salatu wasalaam wax gaaraan ka dhigay. marka hadba intay israaci karto waxaan ugu talagelayay qofka Soomaaliga maskaxdiisa macluumaadkan hal mar inay wada galaan. laakiin haddii qofka dagaalkii Badar aad ka hadasho, haddana kii Tabuk ka hadasho, haddana kii kala uu ku wareeraya. marka waxaan isdhahayay si uu intii isla socotaba inaan israaciyo. markaas unbaa qofka la rabaa inay usoo baxdo wixii uu ku baraarugo, wixii uu u baahan yahay in lasii kordhiyo. xataa cutubyadu isma dhici ka qaarna waa dhaadheer yihiin, qaarna waa kookooban yihiin. marka hala wada akhriyo. dagaaladii jihaadiga ahaa ee uu suubanuhu galay, aragtidaada kuwee ugu saameyn badnaay, maxaase laga kororsadaa isleeda? ani shakhsiyan waxaa aada igu saameyn badnaa dagaalka Badar oo furqaan ba ahaa, kii lagu kala baxay ahaa. wixii uu nabiga rabay caleyh salaatu wasalaam iyo wixii dhacay waa kala duwanaadeen. laakiin wata hadda ay ku sheegayeen nabiga caleyh salaatu wasalaam wax kastuu sameynaya mustaqbalku la akhrin jiray. marka waxaa usoo baxday meeshaan hadduu ka laabto inuusan ka jug laga soo kici karo inaysan ahayn. uuna ku adkaystay oo ilaahayna aad buu u baryey oo yiri haddii kooxdan yarta ah la baabi'iyo ilaahay wax dambe ku caabudo maba arki doontid. hadal saas macnihiisa ahaa oo kama qaali caleyh salaatu wasalaam. marka taas aad bay saameyn igu yeelatay sidii nabiga caleyh salaatu wasalaam wuxuu filayey waxaan ahayn buu galay, ayadii buuna wuxuu ku talagalay inuu guulka keeno. runtii waa meelaha u baahan qofka xataa leadershipka raba inuu tababarto. qorshaad dejinaysaa, qorshahaagii wax ka tan badan baa kugu imaanaya, inaadan ka boodin oodan ka guurinaya, isla ayadii dhexdeedii inaad qorshahaagii ku dhex samayso. midda labaad aada ii soo jiidatay waxay ahayd haddaay in yar baan ka sheegay sulxul xudaybiya oo nabiga caleyh salatu wasalaam wax kasta uu ka tanaasulay. maxamedu rasuulullaahi baa la qoray, hala tiruu dhahay, tiruu yiri. haddiiba waxay dhaheen anaga aan adiga rasuul kuuma naqaano, maba aanan kula dagaalaninba. marka maxamed cabdullaahi baan kuu naqaanaaye maxamed bin cabdillaahi qor bay dhaheen caleyh salaatu wasalaam. marka iyadana wuu aqbalay. iyadoo maka ay u muuqatana waxay dhaheen laabo, meesha ka timid baad ku laabanaysaa, sanad kadib baad soo noqonaysaa oo aad cimraysanaysaa, adoo weliba shuruudahaas ku cimraysanayo. waxaa usoo baxday maan isleeyahay awoodda maka taaluu darsi, awooddiisana wuu darsi.
wuxuu kaloo darsay haddii hadda xoog meeshaan aad ku gashid waxa aad qabsan doontid maxaa waaye waxaa qabsan doonta waxaa waaye inaad soo cimraysato haddii marka hal sano kabacdiba cimradii dhib la-aan lagu ogolya hal sano kabacdi inaysan waxbo saa darteed waxaa laga bartay waxaa kamid ah marka aad heshiis dad la gelayso waxaa la rabaa inaad mustaqbalka aad la fiiriso mustaqbalka marka wax ku dhibaayo maa ku jiro hadduuse wax ku dhibaayo ku jiro ha aadin haddii laakiin mustaqbalka wax kuu fiican oo ku jiro midaan yarta ah xanuunkeeda u adkayso meesha xataa dadka cilmiga militariga barta ay dhahaan goobta inaad ku adkaatid hadaf ka dhigan waxaa hadaf ka dhigataa dagaalka inaad ku adkaato yani goobta inaad ku jabto hadday keenayso inaad dagaal ku guuleysato hadafka koowaad maaha inaad goobtan ku adkaatid hadafka waxaa waa inaad dagaalka weyn aad ku guuleysato xataa heshiisyada marka la saxeexanayo waa meelaha u baahantay in laga akhriyo ah war waxaan mustaqbalkaaga muu fiican yihiin hadda xanuun ma leedaha xanuunkan qaado laakiin waxay ka anfacaysaa mustaqbalka dheer bay ka anfacaysaa dadka qaar baa sheega taariikh ahaan u wariya Saddam Hussein iyo Ayatullahi Khomeini dagaalkii 8 sano markuu socday oo uu dhamaanayay baa waxaa loo kala qorayay xabad joojinta inay dhacayso 11 habeenimo 59 daqiiqadu markay tahay 59 second markay marayso inay xabadda u dambeysay ay dhacdo marka waxay dhahaan dadka taariikhyahanada qaar wax dee uu la sheego waaye laakiin xigmadda anaga hadda waxaan uga jeednaa Saddam Hussein wuxuu yiri marka xabadda u dambeysa anaa ridaayo Khomeini warqadii loo geeyay wuxuu yiri xabadda u dambeysa muxuu ridaaya hal mar aan wada ridno asna markiisa tuura anna waa tuuraya marka 11:59 second markay marayso intaysan 2000 ku istaagin qof walba ha tuuro wuxuu tuuri karo Saddam Hussein warqadii loo keenay wuxuu yiri maya shardi waxa waa asaga inuu soo tuurin aniga bas tuuraya yani waa duleyn bay ka tahay ka adkow Ayatullah markii loo geeyay warqadii saa u akhriyo wuxuu yiri keena waa saxiixaya heshiiska ka dambeeyay maxaa dhacay markii dambe la weydiiyay wuxuu yiri heshiiskan aan saxiixayo sun aan la qaayo waa laakiin asaga u dhimanayo anigu ma dhimanayo Saddam Hussein u dhiman doona laakiin anigu ma dhiman doono laga bilaabo maanta Ciraaq hoos u socon doontaa Iran kor bay u socon doontaa marka qofka hogaamiyahana waa la rabaa mararka qaar go'aanaas Nelson Mandela waxay ka sheegaan go'aankii cafiska uu ku gaaray dadkii saxda uu ka qariyay yani meeshu soo istaagay markaas uu dhahay qof walba cafisu yahay qof wax loo haysto ma jirto asoo ka baqay hadduu kala tashan lahaa inay u diidi lahaayeen marka leadershipka mararka qaar way rabtaa inaad gaari karto go'aano dadkaaga kharaar ku ah laakiin adiga aan mustaqbalka aragtid buugga 75aad buugga waxaad ka cusubtay heshiisyadii nabiga uu galay nabadgelyo xiskulkiisa ahaatee yahuudi madiina la deganeed oo la galay iyo inuu dhisay dawlad islaami waxa kaloo soo qaadatay inuu ahaa heshiiskaasi dastuur ku badan macnaha marka meeshaas waxaa laga qaataa inay bannaan tahay muslimiintu inay dastuur ay samaystaan ay qortaan dadka qaarna way diidayihiin waxay leeyihiin dastuur quraanka noo ah oo ma jiri dastuur marka ma la dhihi karaa heshiiskaas dastuur uu ahaayo meeshaas waxaa laga qaadan karaa in muslimiintu ay dastuur qoran karaan horta hadda nabiga calayhi salaatu wasalaam madiina markuu yimid qoraal buu sameeyey oo reer madiina u kala qoray oo yahuudi madiina deganeed u kala qoray iyo muslimiintii oo ahayd magaaladan in la wada ilaaliyo nabadgelyada la ilaaliyo qofka soo weerara qof kale laga difaaco haddii yahuudi xataa la soo weeraro la difaaco fatx maka marka ay dhacayso waxay ku dhacaysay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo carab qaarkeed xulufo la ahaa iyo reer maka ayagana xulufo lahaa labadii xulufo isku dhacday maka oo dhan saasay ku timid marka waxaan u jeedaa dastuurku waa qoraal un shirkada hadii la sameynayo maxaa la sameeyaa dokumentiga la kala qortaa go-aanka yaaleese go-aanka loo kala qaadanaya dokumentigu see loo sameynaya hal shay waa in laga ilaaliyo wax shareecada islaamka toos uga hor imaanaya oo diinta diidaya yani shay diintu ay xaaraam ka dhigayso waa inaan meesha lagu xalaaleynin saa darteed shay kasta
shardi kasta oo shareecada islaamka ka soo horjeedo yani waa baatil waxba kama jiraan kullu shartin laysa fi kitaabillahi fahuwa baatil saa darteed waxaanu magac carabta u bixi dastuur u bixi warqad u bixi contract u bixi waxaaba dastuurka waxaa la dhahaa heshiis bulsho waa contract waa caqdi ijtimaaci marka waana camal dunyawi horta oo dadkaanu siday u kala noolaan lahaayeen madaxweynahan xukumaya awoodiisa golaha xeerbeegtiga awoodooda golaha wasiirada awoodooda xafiisyada dowladda awoodooda intaasaa ku qoran dastuurkana qodobka koowaad waxaaba ku qoran dastuurta muslimiinta badankoodna wuu ku qoran yahay hadda kulley kaanaga ku qoran yahay wax kasta oo shareecada islaamka ka soo horjeeda inay tahay waxba kama jiraan saasay ugu cadda haddii jumladaas marka meesha ku jirto wixii soo haray waa maamul iyo shuruuc iyo qawaaniin marka dadkuna inay wax ku heshiiyaan waaye oo ay isku xukumaan oo ay ku kala amar qaataan awooddaana xafiiskaa leh qofku ma leh ma jiraan wax aad isleedahay waa ka tagtay oo inaad ku qortay ahayd buugga ama xataa inaad wax ka bedeshay ahayd marka uu soo bax kadib hadda sidii aan ku talagalay buu ahaa oo maxaan rabay inuu buug weyn noqdona ma rabin inuu yaraadana ma rabin waayadan dadka researchka cilmi baaris sameeyay dadka si wax u akhriyaan waxay dhaheen buug 300 oo page ka badan dadku ma akhrin karaanba wax 2 maalin 3 maalin ay ku dhameyn karaan bay rabaan marka daabacaad labaad daabacaad saddexaad buu yeelan doonaa laakiin runtii kuwa laftigooda waxaan filayaa wax weyn inaan ku kordhinaynin haddii khalad ka soo baxayna la saxo haddii meelo u baahan in la yara hagaajiyana la yara hagaajiyo iyadoo dadka waxa ka imaanayo aan ku qaas qaadan doono laakiin waxaan isleeyahay marxalad labaad aan u gudbi karnaa oo ahayd fiqiga siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam laakiin hadda intaan way base way ku filantahay asaas way ku filantahay waxaa jira waxa la dhaho adigu yaa tahay haddaad rabto inaad adiga yaa tahay ogaato dee hebel baan ahay ma ahan aduu waxaa tahay waxa aad ahaan jirtay baa tahay haddaad muslim ahaan jirtay taariikhdaadu ay islaamnimo ahayd waana islaamnimadii barato dadkaaga barato deegaankaaga barato waliba annaga Soomaalidu dhaqamo aan leenahay baa jiro oo qofka wiilka ilmaha markuu yar yahay abtirsiyaha la bara saas way reebel baa tahay marka dadka Soomaalida waxaan oran lahaa marka abtirsiyaha baraysaan kan nabiga calayhi salaatu wasalaam ka hormariya marka qabiilka baraysaana sooyaalka subanaha bara waxaa si weyn sanadihii dambe u soo baxaya saameynta imaaraadka carabta uu ku yeeshay geeska Afrika iyo bariga dhexeba sidaas heerkaas ku gaaray wallahi horta hada imaaraadku waxay u baahan yihiin daraaso dheer ay u baahan yihiin waqti dheer ay u baahan yihiin laakiin la soo koobo aniga qaybta Soomaalida qosayso man ka hadlaya